marka aad joogto Boosaaso waxaa midigtaada kaaga quman oo ku dhinac ordaya buura silsiladeedka Golis Calmiskaad waa magaca ay goonida u leeyihiin buuraha bari ka xiga magaalada Boosaaso ayagoo marka hore kamid ahaa buuraha Golis ee deedsan gobolada waqooyi bari iyo waqooyi galbeed Soomaaliya indoora marka aad buuraha ka dhex shaqaafto waxaa bari kaaga quman magaalada Qandala Calmiskaad iyo cadowga caga dhigtay ayay ku saabsan tahay taminteena maanta inta la og yahay sanadkii 2007 markii kooxda Al-Shabaab xubnaheedu ka aasaasmay Puntland Cabdiqaadir Muumin ayaa yimid deegaanada Puntland asagoo ka soo haajiray koonfurta Daacish laanteeda Soomaaliya waxa ay soo baxday oo Cabdiqaadir aasaasay 2015 kadib markii Cabdiqaadir oo markaa ahaa daaci weyn oo ka tirsan Al-Shabaab kana soo jeeda Puntland uu ka soo goostay ururkiisii kadibna uu waaligiisii cadeeyay inuu daacad u yahay waa ninkii la oran jiray Cabdiqaadir Baghdad waxa uu si fiican uga faa'iideystay Cabdiqaadir Muumin xiriirkiisa qabaliga ah waxa uu Puntland ka qortay ciidamo tiro badan inkasta oo koonfurta Soomaaliya ay Daacish ku leedahay unugyo ay u adeegsato baadista ganacsatada deegaanadaasi haddana xoogeedu waxa uu ahaa haddana yahay Puntland gaar ahaan buuraha Golis ee Calmiskaad dhamaadkii 2015 ayaa la rumaysan yahay in Cabdiqaadir Muumin uu xiriir la sameeyay hogaamiyihii kooxda ISIS Ciraaq ninkii lagu magacaabi jiray Abu Bakr al-Baghdadi si uu u abuuro wakiilada kooxda ee Soomaaliya arrinkaasna waxa uu ku qotamay khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo hogaamiyihiisii ninka xukuma ururka argagixisada ee Shabaab muuqaal ay ISIS soo bandhigeen iyagoo ku sugan buuraha Calmiskaad ee Puntland ayuu ka soo muuqday Cabdiqaadir Muumin sanadkii 2019 si lamid ah sanadkii ka dambeeyay gaar ahaanna 2022 ayay kooxdu sii daayeen tiro ka tirsan ciidamadooda oo tababar ku qaadanaya buuraha bari ee Puntland haddaba ayay sanadahaasi kooxdan isku ballaariyeen dhufaysyo iyo godadna ka yagleesheen kooxahani teer iyo 2016 waxay maamulayeen degmooyin iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada gobolka bari gaar ahaan magaalada Qandala iyo Ufayn meelaha ay maamulayeen talisyada iyo dhufaysadan ay ka samaysteen waxa ugu caansanaa Balididin Tuurmasaale iyo Togjaayl Balididin iyo Tuurmasaale waxay isu jiraan 19 kiiloomitir waa marka laga eego dhinaca tooska ee waqooyi marka la maro dhinaca togana waa 44 kiiloomitir dhinaca tooska ee 19 kiiloomitir waa buuro iyo raf hase yeeshee howlgalkii barakaysnaa ee Hilaac ayay Janaayo 24teedii ciidamada naftood hurayaasha Puntland gudaha ugu galeen magaalada qadiimiga ah ee Tuurmasaale ee degmada Qandala gobolka bari taasoo tan iyo 2020kii ay gacanta ku hayeen kooxda Daacish mid kamid ah talisyada kooxda Daacish laga qabsaday dagaalkii Balididin iyo Tuurmasaale waa taliska Digaale taliskani waxa uu muhiim u ahaa kooxdan dhiig miratada ah waxa uu ahaa talis ay ka maamuli jireen deegaamo 10 ka badan deegaamada ay ka maamuli jireen waxay kala ahaayeen Dhaban Caddo Ariile Welisoor Adin Dhure Conqoro Abaaruc Maydar Il iyo Camayra Daylaan iyo Gubad deegaamadaasi ayay kooxdu ku lahayd fariisimo ciidan oo waaweyn kuwaas oo isugu jira talisyo ciidan dugsiyo tababar maxkamado iyo xarumo farsamo waxay ahaayeen ay tababar ku siin jireen kooxaha ajaanibta ah tuulooyinkan aan soo tilmaamay waxa ku yaalay ilaa iyo 22 talis waa taliska Salnafeed Aweydi taliska Kaadilay taliska Wacaryaad taliska Dabadheere taliska Aroorgub taliska Canqoro taliska Digaale godka Madax Maroodi Xoor Maydar Duldhaxaad Albarako Haadi Xanan Haadi Dhariin Haadi Faras Haadi Lamaan taliska Daylaan taliska Aroorgub taliska Suradka Dibqallooc taliska Al-Dacwa taliska Ceelileed dhammaan dhulkaasi iyo talisyadaasiba waxay galeen gacanta ciidamada naftood hurayaasha ee Puntland 4tii bishii labaad 2025 ciidanku waxay Tuurmasaale ka socdeen ilaa 27 kiiloomitir waxayna qabteen Haraariyo Dhasaq Talal Dharin Dadamaale ciidanku waxay joogaan kala bar Tuurmasaale ilaa Dhasaan waxaana halka ka bilowday howlgalkii Togjaayl iyo Curaar marka hore waxaan rabaa inaan ku dulgeeyo kuna baro Togga Jacayl waa tog dheer oo ay meel kasta kaga soo darsamaan jeexyo togog ah
waxa uuna ku dhamaadaa badweynta Indian Ocean degmada xaafuuna waxa uu kaga darsamaa meesha la yiraahdo Fagoole dhammaan biyaha ugu badan ee dhanka bari ee gobolka isaga toga ah ayaa qaada waxa uuna maraa tuulooyin badan howlgalku waxa uu ku soo aaday xilli aan roob ahayn oo haddii ay xilli roobaadka ama Google la isla gaaro togu wuxuu caqabad ku noqon doonaa howlgalka inuu dhaqaaqo dhiiri ayayna wadooyinku isku bedeli doonaan toga dhaxmara xoorkaasi isagana waxa la dhahaa xoor jacayl tog jacayl waa mid aad u weyn oo ay ku dhex yaalaan in ka badan 24 tuulo waxayna kala yihiin Dasaan Daadaar Hankookib Garaar Kayaxa Sheebaab Kaatir Oodan Daramadow Dadamaale Qurac Talal Duudado Markadaan Haraariyo labo Dhariin Tuulo Naxar Afcad Tuur Masaale Xijiile Canjeel Xarago Laba Garday Beel Wacatay dagaalka lagu qaaday Daacish meesha ubuucda u ah waa tog jacayl waana meesha saldhigga u ah ee ay kaydka iyo dhufaysyada ugu waaweyn ku leeyihiin haddii tog jacayl laga wada qabsado macnaheedu waa in la jabiyay oo laga adkaaday Daacish sababtoo ah meelaha kale kuma dagaalami karaan oo waxay noqonayaan firxad carar ah si lamida sidii ay u carareen intii aan Tuur Masaale la tagin ka hor oo Tuur Masaale waxay ahayd meeshii laga galay tog jacayl dagaalkii u dambeeyay ee ka dhacay Tuur Masaale ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee ka dhaca jacayl gudaheeda sidii aan soo xusay ilaa hadda waxa harsan in ka badan 10 tuulo oo aan wali la gaarin kuwaas oo ku yaala xoorkan jacayl hadda gulufku wuxuu ka dhax socdaa tuulooyinka 24 oo ugu yaraan 10 kamidii gacanta u galay ciidanka Puntland ka hor ubuucda gudaha toga jacayl kooxdan argagixiso dagaalka foolka foola waa iska ilaalinaysay oo mar walba oo ciidanku u soo dhawaadaba waa ruqaansanayeen balse 3 bari ka gadaal duqeyntii 1 February ay Mareykanku ka geysteen Calmiskaab ciidamada Puntland ayaa weerar ku ekeeyay argagixisada waxay kaloona hor yimaadeen difaac adag waxay ku tashadeen inaan ciidanka Puntland u soo dhawaanin marnaba tuulada la yiraahdo Dasaan oo ah goob ay rug ka dhigteen difaacuna waxa uu uga xirnaa tuulada aan horey u soo sheegay ee Qurac oo sida aad aragtaan aad uga fog Dasaan Febraayo 2 ciidanka Puntland waxay soo leefeen fadhiyadii Daacish ay ku lahayd Meegaag iyagoo horey u soo qabsaday Godin Daray Markadaan Godin Saaf Yisilix Dhariin Haraariyo Talal Kurdiini meelaha sida aadka alla isugu arki doono waxa kamida Daadaar oo argagixisadu saldhigyo waaweyn ku leeyihiin Daadaar waxay qandalo u jirtaa 212 kilomitir meesha labaadna waa Qurac oo ay ku sugan yihiin ciidamo xoogan oo Daacish ah waxaana ka sokeeya tuulooyin dhowr ah oo ay kooxdu ku sugan tahay oo ay kamid yihiin Talal Dhaqasaq Markadaan ilaa hadda waxa ciidanka Puntland gacantooda aan soo gelin tuulooyin badan oo ku yaala tog jacayl oo ay kamid yihiin Qurac Dandamaale Kabajawle Hojbooceed Daramadow Curaar iyo Gaatir Oodan geesiyaasha shahiiday samir waasaca Allah inaga siiye dhaawacana Allah u boogadhaye haddii bini aadamku wax uu soo foole ogaan lahaa waxa aan ogahay in ciidamo shisheeyo oo dal aanay lahayn ku soo duulay aanay dadka deegaanka ka xoog badnaan karin geesiyaasha Puntland waxay ugu dambeyn xaqiijin doonaan guul waarta waxaan ahay Muxuudiin Cabdi waxaad igala socotaan juqraafi